teeda kalena Kenya qof walba imaan kara free country waaye visa lagu soo galaa ayno qof ka hortaaganna ma lahan. Sharma Boy tagitaankiisa saameyn ma ku yeelan karaa ama carqalad ma ku samayn karaa Daahir Calasow oo weli ay hayaan dad badan ayaa baraha bulshada arrintaas ku weydiinaya. Deeq Darajo ayaa wareysi bixiyay oo sir badan banaanka soo dhigay oo dadka aysan la soconin. Muuqaalkan ayaan doonayaa inaan kuugu soo gudbiyo haddii ay tahay markii ugu horeysay oo channelkeen aad soo booqatay nagu soo biiran ku leenahay subscribe dheh gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inagu reebta naga ilaabin horaan haddii aad nala joogtay waad ku mahadsantahay la joogitaankaaga waxaan ku leeyahay muuqaalka like leh si meel fog uu gaaro sida aan wada ogsoonahay daawadayaal Sharmaarka Cabdinaasir Sharma Boy waxaa si rasmi ugu ogolaaday in magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya uu ka soo dago Ahmed Rashid oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada dalka Kenya nin Soomaali nin Soomaali badan maanta ay aad iyo aad u qadariyaan oo xaafadda Islii magaalada Nairobi ganacsiga ka jira nidaamka ka jira nin ka ilaaliya Kenyaatiga kale inuu yahay Ahmed Rashid iyo Sharma Boy horey way isku hayeen sidaan wada ogsoonahay Sharma Boy waa tii qorshuhu ahaa in 1 January uu tago magaalada Nairobi halkaas oo show uu ku qabto buuq ayaa ka dhashay dad badan oo YouTubers Facebooker ayaa arrintaas isku dayay inay hirgeliyaan waxa la diyaariyay xataa xilligaas sida ugu maqaalada ciidamo gaar oo Sharma Boy amaankiisa suga oo Ahmed Rashid uusan saameyn ku yeelan karin laakiin haddana Sharma uu fiiriyay xaaladda wuxuu yiri walaalayaal uma soo socda aniga magaalada Nairobi in la dilo ayaan ka baqaya si toos ayuu u sheegay hadda Ahmed Rashid maalin ka hor muuqaalka hore sidaad ku daawateen wuxuu sheegay in Sharma Boy magaalada Nairobi uu imaan karo in Sharma Boy cid haysata aysan jirin in Sharma Boy cid ku soo xadgudbi karta aysan jirin show uu qabsan karo magaalada meesha uu doono uu ka joogi karo dad badan ay farxad gelisay oo dhalinyaro oo Sharma Boy aan ku qabiil ahayn Sharma Boy wiligood aan arkin oo shaashadaas un ka arkay Sharma Boy faniskiisa kamida dhalinyaro kaliya ma aha dad waaweyn xitaa jira oo fanaankan iska qadariya waa nin dhalinyaro oo maanta dad aan dhaceenin oo maanta dad aan dilaynin oo maanta qabyaalad aan wadin oo maanta qof uu xadgudub ku hayo oo gaar aysan jirin markii la ogolaaday oo Ahmed Rashid uu ku dhawaaqay in isaga iyo Sharma Boy wax u dhaxeeya aysan jirin magaalada uu imaan karo meesha uu doono uu ka mari karo xaaskiisa caruurtiisa horey u joogeen hadda garow ay ku wada sugan yihiin ilaahay u daayaan leeyahay waxaan ogsoonahay marka in Sharma Boy ay hayaan weli Daahir Cabdulla Calasow dhawaanahan horta wuxuu ku sugnaa Uganda mar wuxuu joogay Nairobi hadda laakiin wuxuu dib ugu laabtay dalka Holland oo uu dhalasho ka haysto waa nin Soomaali Hollandees marka waxa meesha yaalo waxay tahay Daahir Calasow saameyn ma ku yeelan karaa show haddii uu qabsanayo Sharma Boy haddii Sharma Boy baashaal uu isaga tagayo Nairobi oo faniskiisa uu tagayo iyo waxyaabo la mid dad badan marka waxay qabaan Daahir hadiiba Ahmed Rashid uu hadlay oo uu dhahay war ninkaas cid haysata ma laha Daahir in khalaas uu yahay oo meeshaas ay ku egtahay arintiisa wax kalena uusan qaban karin Daahir ebel wuxuu saaxiib la Ahmed Rashidna hadda hadii arintii ay go'aankiisa uu qaatay waa ka Daahir uu ku daayay ay dad badan aaminsan yihiin Daahir Calasow dhowr jeer oo hore ayuu ku hanjabay in Nairobi uusan imaan karin Sharma Boy waan ogsoonahay laakiin hadda Daahir wada kale oo u furan oo uu ku carqaladeyn karo show hadii uu qabsanayo Sharma Boy ama iskiis uu Nairobi u imaanayo ama meel kale oo Kenya kamid uu tagayo Mombasa Garissa meesha uu ka tagayo saameyn kuma yeelan karo maxaa yeelay Kenya dawladdu waa oo dhisan nidaam kala dambeyn iyo sharci ayaa ka jira qofku ugu soo xadgudbi kara ma laha qof aad ku xadgudbi kartid ma laha waxa ugu weyn ee laga rabo waxay tahay sharci dalka ma ku joogtaa sharci hadda ku joogtid xuquuqaad leedahay askartaan kula hadli karin shacabaan kula hadli karin meesha aad doontid nabadgelyo ku maraysaa Deeq Darajo marka saaxiib waxa uu leeyahay Sharma Boy waa kaamiramanka gaarka ee Sharma Boy waa ninka u haya Sharma Boy YouTube-kiisa waa nin aad nafta ay u dhaxayso isaga Sharma Boy wuxuu ka hadlay marka arrimo badan ku saabsan diyaar garowga imaanshiyaha Sharma ee magaalada Nairobi wuxuu sidoo kale ka hadlay xilligan iyo sida uu arko
faniska iyo dareenka ay qabaan. Wuxuu sheegay in dad badan ay ku faraxsan yihiin Sharma Boy inuu Nairobi yimaado, Sharma Boy inuu muujiyo in markaasi dareen gaar ah isaga oo qaba oo farxadeed uu magaalada Nairobi kasoo dego. fanaaniin dhowr ah tagay Nairobi. Xamdi Bilan iyo Zakariya Kobciya ugu dambeeyay markii ugu horeysay show ku qabsaday. waxaa kasii horeeyay Xariira kasii horeeyay, Wizb iyo dad kale la qabsaday. fanaaniin badan oo reer Muqdisho ah, King Garaasha show ku qabsada uga qayb galay, King Jaamaca ku qabsatay. fanaaniinta lama soo koobi karo. Nairobi waa meel Soomaali ay degan tahay oo xudunta Soomaalida ay ku dugan tahay, hantidooda ay taalo oo ka duwan qurbaha kale Soomaalidu ay degan tahay. waa meel Soomaalidu deegaan ay ku tahay hadana oo Gaarisa, Wajeer, waqooyi bari Kenya markaad fiiriso dad Soomaaliyeed degan oo wanaagsan oo sharaf leh. marka deeq darajo bal sirahi uu kashifay ayaan rabaa inaan kuugu soo gudbiyo halkan. haddii aad dhamaysato muuqaalka qaybta commentiga fikirkaaga inaad noogu reebto ayaan rajeynayaa. Sharmaake horta qof walba fanaan jadwal iyo wuxuu ku socdaa wax oo adiga u diyaarsan. hadda tribyada iyo showyaasha iyo dadka taageera iyo meelaha uu booqanayo meelaha kala joogaanba hab uu aadaya jiro, qof walba taageero leeyahay. taageerihiisana inuu u tago way fiican tahay, laakiin waxaa muhiim ah inuu jadwal samaysto. iska tag ma loo tago mogtahay iyo qofa dhahay imo lagu imaanayo iyo qofa waxaas ma jiro. wax walba waxay leeyihiin wax diyaarsan waaye. kii January qorshe uu ahaa horta la buwan, laakiin waxaa kasoo hormaray hoola asaga private u ama gooni oo muhiim ahayd markaasi inuu ka baaqdo showgaas. ma fahamtay? so waxaa jirta marka mar oo clip TikTok la wareejinayay si kaftar oo leeyahay kusoo waa dareemi kartaa qofka markii adiga si kaftankiis badan yahay ma la ogaan kara xilligu kaftamayo xilliga kale. marka wixii yaraayo viral la dhigaa intii la wadada oo trend garesma arkaysa adiga. waa xasuustaa kilibkii uu lahaa yani Nairobi inaan imaado show ku qabtaa rabay laakiin waa ka baaqday aad weyn. marka tan kale oo xalay dad game dheela jira adiga ama TikTok ku jira ayagana oo sheegayeen inuu Sharmaaga balan qaadayaan inuu imaado. horta lamboona la jirto qofka markuu taageero leeyahay ma ku xirno shakhsi ma ahan oo waxa waaye dad badan taageerayaan. marka in marka laga dhexraadiyo qofkaasi in gifti lagu helo okay waaye oo asaaba u samaysan qofkaasi maadaama fanaan u yahay in taageerihiisa gifti loo helo ladhaho ninkaasaa imaanaya. laakiin qofkaas dowlad ma ahan. teeda kalena Kenya qof walba imaan kara, free country waaye. visa lagu soo galaa qof ka hortaaganna ma lahan, qof uu dagaal sharma kula jirayna ma lahan. waa qof walbaana og xili walba inuu imaan karo, laakiin asaga jadwal uu leeyahay qaab u degsanaya jirto oo ku imaanayo. in sometimes way fiican tahay qofka jadwalkiisa dadka taageeri surprise ugu dhigto, laakiin dadkaasi ma ismaqlaan, ma isla hadlaan, ma isyaqaanaan. waxay ku qaraxsanayeen keliya isleeyahay programkooda iyo inay dadka markaas daawanaya xiisa ugu yeelaan. deeqo waxaan ku weydiinaa anoo raba hadalka inaan kaa dhex galo. waxaan qiyaasahay oo aan ku ogahay Sharma waa dadka asaa igu dhow saaxiibkeyga waay inuu February imaanayo Sharma Boy uu show ku qaban doono Nairobi. safarka maxaa is leedahay dib uu dhigay? waayo February way nagu soo dhowdahay ilaa hadda qaban qaabo ma aragno. imaashaha maxaa hor istaaga is leedahay? horta Sharmaaka way maana laakiin hadda iyo waqti weyn ma dadkaana iska jecelin hadalhayn inay iska raadiyaan Soomaaliya iska dhibadeen. laakiin meel walba Soomaali joogta asay waajib ku tahay inuu soo tootay dadku tabacday waa Soomaali iyo bulshada ma fahanti. marka waxaa waajib meel walba Soomaali ku nooshahay inuu aado. kaliya Kenya bis ma ahan, ma joogaan Turkiga joogaan, wadan walba oo adduunka joogaan Soomaali fahamti. kullina inuu soo maro waajib waaye. hadduu rabona wuxuu ka dhigan karaa February meel kale inuu aado hadduu rabo halkaan imaanka. laakiin waxaa u sheegaya keliya dadka hadda leeyahay waxaan fasax ugu qaadaynaa Sharma inuu imaado fasaxaynaa oo inay si gifti ku raadinayaan. dadkaas waxaa leeyahay iyo programka Sharma laba keliyihiin.